ninkaba mar hadda aragtid inuu taleefankiisa kaala baqaayo hadda aragtid wallahi in ixtiraam ku haayo waay absolutely sababta ixtiraam ku haayo waxay tahay waxa taleefankan ku jiro in aad qalbigaaga ee dhaawac u geysanayaan wuu ogyahay asagana wixii iska mareebid kara waa wax ilaahay ku abuuray si iskaga bixiyaa marka ma qof dhiigiisa iska saari karaa jir maanta oo dhiig la'aan socon kara ninka maanta inuu naag guursado ama naag dushu kaansado wax dambi hadda oo kutubkiisa loogu qoraayo ma jirto sax masbeen مسرون كتب كي ولا يعني دمبنا loo qoro aniga kutubana loogu qoraa Soomaaliya malaayga noo qorto ninka naag asagoo qabo naag kale damcay ama uu la haasaabay ama uu sheekaysadii loo dambi baa loo qoraya sida dunuubta kale loogu qoro ma dambi kutubkayga loo qoraa marka inaadan isku dayin inaad power ku soo gasho ninka aad tiraahdo waa inaan kan isiisaa waa inaan waxaas ka helaa may maadaama marwo aan ahay ducada mar walba aan ku duceystaa waxay tahay ilaahayow qalbigiisa jacaylkayga iyo jacaylka caruurteyda ku abuur okay dhankiisa wanaagsan na soo xiji okay gacantiisa iyo maxaa la dareemihiisa iyo wax walba oo asaga ku saabsanna anagana soo aadi labada qofood ee bari isguursanaya waa wax inda Allah ka qoran cid og malan aniga iyo tusaale odagayga markaas maankan isguursanaynay labadeena maan ogeyn naas qoranahay sax tusaale saaxiibtay iyo odageygana isbartaan aniga waxaan u arkaa nooc kamid ah walaashay iyo saaxiibtay isbartay ama walaalkay iyo saaxiibtay isbartay oo kale qoftan waa saaxiibtay waa taan shaqo leeyahay waa qofkan waqtiga la qaato haddii culays i haysto waa qofkan la wadaago qofkan waa shariik xayaati qofka aan nolosha wadaagnay waaye inay isbartaan aniga wax weyn oo dhibaato ah inay ku jirto baamisan laba sib marka haddii aan saaxiibaday ka qariyo odagayga oo aanan barin oo aan ka dhowro laba sabab waan sameynayaa laba arin koo waxaan sameynayaa inaan kalsooni nafteyda ku qabin inaan tuso odagayga oo aan noqdo qof aan isagii wax kalsooniha ku qabin inaan noqdo laba jeer marna aanan kalsooni isku qabin oo xitaa kalsooni daradeedu heer waxay gaartay gabdhaha igu hereereysan saaxiibaday inaan ka maseero kalsooni darada labaad aan sameeyay waxay tahay inaan asagana uga maseerayo gabar kastoo socota inuu damcaayo laakiin dan saaxiibaday isaga isbaro waxay ka dhigan tahay in aniga nafteeda aan ku kalsoonahay saaxiibaday waan ku kalsoonahay adigana waan kugu kalsoonahay oo saaxiibaday ma damci doontid hadday saaxiibtay iyo odayga isguursadaan la cala tusaale calaf baa dhexdooda yeeladay wax weyn ma aha markaasna xaaladda mowqifkaas yaan go'aan kaga qaadan wax la cala ah waxaan qabaa aragti ah wax la cala intaad saaxiibada iyo odaygaaga u kala ilaalin lahayd noloshu day ciriiri life is easy okay laakiin pointiga maadaama aad dardaarankii dhiirgelinta aad wadatid pointigaas adiga iyo dadka ka dhageysanay laakiin anigu waan ka soo horjeedaa pointigaas oo maadsantahay xabsa markaan ku leeyahay yani gabadha yeysan ku soo lifaaqin saaxiibadeeda familka u dhisan iyada isku soo lifaaqin waxaan kala jeedaa yani gabadha inaysan muujinin inaysan bataatan wax saaxiibo lahayn inay ninkan iyo reerkeeda waxaanan ahayn yani inaysan lahayn ha muujisa kama wado ninkaaga in asxaab leedahay yani sheeka ahaan gabadhaas isku iskuulnahay iskuul ahaan jirnay midaas jaamacad isla dhameynay aada isugu fiicnayn si guud ha oga warqabo okay laakiin ina iska hor keento oo isbarto بريك مالين هدي إسجورسدان وحكي حنون بدنت أيقو بنانك إسكبرت هدي إسجورسدان وحكي حنون بدنت هاي مركا أديك إسبرتو لا أسكو ماذا يتهان كله ويكقع بدنته فرنت ممكن لقى هذا يعني ماشي سوحة إيمان يسو الله إليها دان إسبري لهين أرنتا ما إيسان إيماتين تاسينا إيماتا معقولة معقولة تا قلبي إنو كسي جبتو مركا ما أهان إن هذا صاحب لهين وواحد صاحب مليه وأنا جريرك أديك صوبضتي يا أديك عن ما أهان عد كلت مليه مجرتو si guud ha oga warqabo in asxaab leedahay laan waxa imaan doonto in bariiq saaxiibada mid kamid la guursado inuu ka warqabo heblaaya maanta la guursanaya aan aada heblaaya maanta arintaas qabto heblaaya maanta uu cazuumanahay inuu si guud oga warqabo laakiin si kafool inaan isugu imaanin oo la isdhex galino maxaa la yiraahdaa telefoon la iska wawacanino sidaas waa aniga sidaan qabo saasina ku qurux badan tahay qolkaas waa sidaad kula tahay waxaan jeclaan lahaa inaysan dood naga noqonin aqodobada kale u sii gudubtid maasantahay qodobka xiga qodobkaanu daba yaalaa okay gabadha wanaaga saygeeda uu leeyahay iyo waxyaabaha uu ugu fiican yahay iyo waxyaabaha uu ugu roon yahay inaysan la wadaagin dadka kale asxaaboo kaliya maba ahanba si guudba inaysan u sheegin haddii uu u wanaagsan yahay u gacan furan yahay yani sida iyada ay rabtay uu ilaahay ooga dhigo inay xamdan lillaah tiraahdo ee waxeeda qarsato maxaa ka imaan karta arintaas
ka soo qaadba 6 gabdho saaxiibada ah ama 6 dumar ah la sheekaysanaysaa waxa leedahay wadaadkii wuxuu ii sameeyaa waxaan saan uu ii sameeyaa kan uu ii yeelaa leedahay waxa laga yaabaa gabdhahaas gabar kamid ah waxyaabahaas aad ka sheekeynaysid inay hesho iska dhaafe inay yacni dhib ku nool inay tahay habeen imaan qalbiga ka oynayso ee nolol adag ay ku jirto marka inay qalbiga ay ka tiraahdo alla ilaahay iyadana sidaas ay ku nooshahay anigana nolosheeda sidaanay u taalaa bal waxaa laga yaabaa in marka qaar waxaas wanaag ka sheekeynaysid ashtakan aa ku darto waxaas ii sameeyaa laakiin waxaas baa iga dhiman already waxaan iga dhiman adhees iska day waxaan haysatidna uu qof leeyahay jannada iyo adduunka inaa haysatid waxyaabahaas ka imaan karo inaad qarsato kullama nimcada aa ku shukrisidna ilaahay waa kullama uu ku sii badiyo sax weeyaan qodobka xiga haddaan u gudubno ragga sir waxaa jirto loola dhaqmo marka ay imaato in wax laga qaato hanti ha ahaato ama wax kale uga baahan tahay dabcan qofkan adiga maadan dhalin hooyii aabaa dhalay waa qof weyn ragga sidoodaba halka qaab wax looga qaato waxay tahay sasabasho iyo si degan inaa oo la hadashid maadaama aan ka hadlayno qof guriga hadda dhisan raba ama guriga hadda ku cusub yahay inaadan baawar isticmaalin gabar walaashay mar ii sheekeynaysa waxay igu tiri markaa reer yeelanayso ama reer yeelato waxaa kasoo tegaysaa hay tiri kelimadda aniga guriga hooyada ayaa uga soo tegaysaa yacni waxyaabo badan oo marka guriga hooyada aa joogtid waxaa jiro kibiraa jiro isla weynayaa jiro waxaa waaye waxaa u baahan tahay waa laguu samayn karaa ama adaa samaysan karo aniga guriga hooyaa uga soo tegaysaa ama guriga markaas nolosha nolol ka duwana imaanayso marka inaadan isku dayin inaa baawar kusoo gasho ninka aad tiraahdo waa inaan kan isiisaa waa inaa waxaas kaa helaa may dib ugurasho baan sameynaa ninkaas gadaal uu kaaga sikanaya laga yaabay asagoo marka sasabash haddaad sasabatid oo wax walba kuu daadin lahay inuu dib kaaga si qodobkaasna sira iga tahay dabcan gabdhaha reeraha dhaqanayana inay ka warqabaan arjinaya intooda badan si wanaagsan marooyinka ah qodobka xiga waa cidna marna inaa laba bardhigin ninkaaga khalad weeyaan basla aywa waxaa laga yaabaa gabdhaha mararka qaarkooda inay guri kaleeta ay fiiriyaan oo kale ay isdhahaan gurigan saan waaye naagtaa ninkeeda inta waxaasuu u sameeyey guri noocaasuu degan yahay jiif noocaasuu u dhigay kadibna ay ninkeeda u imaato ay tiraahdo heblaayo ninkeeda maaragta waxaasuu u sameeyey heblaayo ninkeeda kanuu u yeelay heblaayo ninkeeda ninka qalbi jabay ku tahay xitaa hadduusan kaa tegin qalbiga xaggiisa waa kaa tegayaa qolofkiisaa kula jooga laakiin qalbiyan wuu kaa maqan yahay waxaa haysataan ha badnaato ha yaraato waxba ha haysanina u muuji inaa kula qanacsan tahay xitaa hadaadan ku qanacsanin isbarbardhiga jooji bas iska aamus adi intaas leysama waxaa samayn kartaa dee inaa ka hadasho bointiidan adoon laakiin cid kale soo qaadanin oo uun sheekada labadiina idinku kooban tahay ama si sheekaha waa iskaga sheekeyn karta yani inaad tirada waxaa ficnaanid inaan waxaas yeelan dhib male laakiin yaa idinka idinku koobnaato oo meesha muuqaalna ka jirin iyo isbarbardhigitoon muujina adiga muuqaal ka duwan inaad jeclaan laheedan inaad ku noolaataan ma jeclaan lahayd laakiin ha barbardhigin waa dhihin heblaayo ninkeeda wuxuu u sameeyey iyo heblaayo ninkeeda kaa fiican meesha kuma bujirtaba khalaas waa si wanaagsan marka waxaan kala dardaarmayaa gabdhaha maadaama ay cusub yihiin hadalladaas oo kale intii waxyaabahaas iyo qodobkaas iyo intii ka horeysaba inay iska ilaaliyaan qodobka kaleete arab waxay tahay taleefanka siigaaga habaarin in badan oo badan social media commentiska markaa akhriyo gabdhaha waxay leeyihiin sidee ku dhaceysaa inaa ninkeyga lambarkiisa taleefankiisa aana fiirin qofkii soo waco iyo qofkiisaan yeelo halka mid aa kugu leeyahay sababtaas waxay tahay caafimaadkaada kaliya ku jiro inaan taleefankaas baarin caafimaadkaada ku jiro kalsooni daro iyo kalsooni wax laga hadlaayo ma ahan ninkan waa damac ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku abuuray inuu maanta dhan hami ku jiro hami haddee marka ninka ragga ah laakiin hal laag buu ku ekaadaa sida caadiga aywa laakiin hami wax la dhahayaa jiro iskala sheekeysto hadduu rabo asxaab ha ahaadaano adiga marka waxyaabahan o dhan way kaa qarsanayaan caafimaadkaaga wuxuu ku jiraa inaadan wax baaran ama taleefon ha ahaato ama wax kale ha ahaato inaadan wax dabagelin caafimaadkaaga ku jiro marka qaca kaa yeerayso meeshaas waxa kaaga hore waa un qac qalbiga intuu ku jabi lahaa marka shib iska dheh oo taleefonkaas iska meermeerisa iskaga meermeerin karto midda kaloo aan uga faa'iidaysana qodobkan waxay tahay haddaa aragto ninkaagu inuu taleefonkiisa kaala dhuudhuumanayo ama uu kool ha kaala dhuunto ama taleefonkiisaba mar inuu kaa qarqarinayo haddaa aragto ninkaas waa nin ixtiraami wanaag kuu haayo ee ilaasho banaanka muu kusoo hadlo kama wado yani guriga isagoo joogo taleefon gurigaaga kula dhex dhuumana kama wado in taleefonkiisa uu kontaroolo uusan kuu ogolaanin baasweerada uu kaa bedasho hasadaa arkaysid ninku ixtiraamayo waayo
okay ninka aanan ixtiraamka iyo wax dhan kuu haynin oo haddii qalbiga ku xanuuno iyo hadduusan ku xanuunin aanan kala jeclayna halkaas intuu fadhiisto telefoon ku hadlaya markaad qaaq tiraadin wuxuu ku leeyahay afar ilaah ii baneeyay xaqiiqadii jirto waxay tahay ninkaba mar hadda aragtid inuu telefonkiisa kaala baqaayo hadda aragtid wallahi in ixtiraam ku haayo waay absolutely sababta dus ixtiraam ku haayo waxay tahay waxa telefonkan ku jiro in aad qalbigaaga ee dhaawac u geysanayaan wuu ogyahay asagina wixii iska mareebid kara waa wax ilaahay ku abuuray si iskaga bixiyaa marka ma qof dhiigiisa iska saari karaa jir maanta oo dhiig la'aan socon kara ma haduu dadaalo iska din karaa hadduu dadaalo waa goonideeda laakiin sida la ogyahay ma din karaan diidaadii din karaan diida waa si dabiici ah waxaan wuxuu ugu abuuran yahay inuu wax raadiska waaba ku abuuran yahaba wuu is ogyahay adigina wuxuu leeyahay qoftaan hadee waxaan ogaato kalsoonideeda waa isbedelaysaa dareenkeeda wuu isbedelaya marka xumaan iyo khiyaano kama aha asaga si marka loo fiiriyo sax si marka loo fiiriyo sax sida saxdee sayga dhacda khiyaano kama aha ya khiyaano aniga waanadii hore waa yeelay telefoonka habaaran iyo kada khiyaano ma aha laakiin waa diiday wallahi sida runta marka loo hadlo nooc khiyaanada kamid ah waa ha yaraatee khiyaano beedaa leen iskaga dhihi karnaa khiyaano cad oo yeerooti no way ninka maanta inuu naag guursado ama naag hadduu shukaansado wax dembi hadda oo kutubkiisa loogu qoraayo ma jirto sax masbeen masrun kutubkee walaal yacni dembigana loo qora aniga kutubana loogu qoraa sooma malaayigaa noo qorto ninkaan naag asagoo qabo naag kale damcay ama uu la haasaabay ama uu sheekay sadii loo dembi baa loo qoraya sida dunuubta kalena loogu qoro maya dembi kutubkeyga lagu qoraa qodobkaas waxaa maleenaya dood badanaa ka dhalisay aad kaas waa ku dhegana makafukooy aada khiyaano waxaa ahan ku sheegaa ani aad axdi ma galnay shuruud manoo taalaa haddaa gafta khiyaano waayaba khiyaano saasay ku tahay shuruudda aan galayno المسلمون على شروطهم حديث نبي laga wariyo ahaa marka hore ba khaladaba ninkan inuu maxaa la heshiiskaas inuu galo wuu is ogyahay qof joogi kara baa shay dhaafay adaa niman ku hiilino sida qodobka kale u gudub xaaladda waa adag tahay u hiilis ma ahan sida saxda wax u jiraan aan ku sheegaa mayo ha galo shardiga ma galay ma ka baxay haade waa khaa'inul wada asaga qaldan marka hore ba gala ma baan inuu runta sheego ama ku qaado ama oga tag markaas asaga laga rabaa soo dhaw marka qofkan horta soo say biri xaaladda noqonaysa day ma ogeysaga laakiin waxa jir wax uu qof kasta qiyaasay inuu noqon karo haduu aaminsan yahay qofkan مثلا wiilkan haduu aaminsan yahay hadii uu gabadhan helo inuusan gabar kale u baahnaan doonin uu shardiga ala asaas hada ku galo ay biri wax isbedelaan deesimo oga biri wax isbedeli kara mogtahay صح laakiin xaaladda haduu duu qiimeeyay uu shardiga hada galo uu khiyaanana sameeyo muxuu sameeyay wiilkaas soo khiyaano ma aha wuxuu sameeyay waqtiga asaga wax sameeyay qalad asaga sameeyay khiyaano sameeyay ma aha inuu gabadhaas shardiga la galam ku khaldana asaga ku khaldana sababta uu khaldanaana waxay tahay nin joogay ma ahanbo ee qofkan uu ku qancinayaa bas qanaaco qofkan uu ku qancinayo waa bas waa wax la wada og yahay runta markii laga hadlaayo qodobka xiga walaal runta markii laga hadlaayo xabsa saasa ah yani runta waaqac waa diidina laakiin sida saxda waa saas ma jirto waxaas way qodobka ugu dambeeyo waxaa waaye nin waxa kuu celin kara oo kuu hayn kara oo kuu xakamayn kara asmi cilnaymo aan la cilnaymo may asad waa joogaysaa laakiin waxa qofka socona asaga waa soo maahan asaga saddex boos kale ka banaanta adi hal boos aleeda booskaadina waa haysataa soo maaha asaga marka saddex kale ka banaan saddexdaas kale iyo nolol qurux badan iyo waxa la yiraahdaa nolol qurux badan hadaa rabtid iyo saddexda kale in lagaaga indhasaabo waxa kaliya ay sameynaysid waxay tahay ducada lee badi okay mar walba marka ducada ani ma duceysanaya mise isagaan u duceynaya see weeyaan ducada walba duceysanaya okay mar walba ducada ku duceysanayso waxay tahay anigana aan sameey maadaama marwo aan ahay ducada mar walba aan ku duceystaa waxay tahay ilaahayow qalbigiisa jacaylkayga iyo jacaylka caruurteyda ku abuur okay dhankiisa wanaagsan na soo xiji okay gacantiisa iyo maxaa la yiraahdaa dareemihiisa iyo wax walba oo asaga ku saabsanna anagana soo aadi noo sakhir yes mar walba ku duceyso leel u soo kac duca cid ku qasaarta malahan sideedaba adaaba faa'iido haddaad duceysatid marna ilaahay ugu dhawaatay oo waa cibaado ducada naftirkeeda marna wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala aad kaga bariday ayaad ku helaysaa haddaadan ku helinna yani damaaniina fi lqalbi aad dareemaysaa inaad qalbiyan aad degantahay marka maxaa la yidhaahdaa ducada muhiim waayo ama waxaa rabta hel ama ha helin internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah